waxaan soo gabagaboway socdaal dheer oo qaatay 17 casho aan ku soo marnay Puntland iyo Galmudug runtii socdaalkaas wuxuu ahaa socdaal shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed si diiran oo wanaagsan ay halkaas noogu soo dhaweeyeen iyagoo ahaa dadka reer guuraaga ardada ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada dumarka Soomaaliyeed salaadiinta culimada siyaasiyiinta mas'uuliyiinta ay ugu sareeyaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo walaaltinimada leh ee diiran ee halkaas noogu soo dhaweeyeen oo saacadaha badan ay u taagnaayeen qorraxda si ay u arkaan madaxdooda iyo dawladooda u arkaan taas waxaa noo soo baxday runtii dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad dawlad jecel dad soo dhaweyn wanaagsan dhagay waxay ka maqlaayeen waligood Allah dawlad federaal laakiin ma aysan arag madaxweyne u yimaada ama mas'uuliyiin sarsare u yimaada ma aysan arag runtii iyagana waxay ka ahayd dawlad barasho annagana waxay naga ahayd dad barasho iyo dal barasho naga ahayd runtii si wanaagsan oo aad wanaagsan noo soo dhaweeyeen aad iyo aadna waa uga mahadcelinaynaa ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Xaaf sida ay runtii ay wanaagsan aad iyo aad noogu soo dhaweeyeen safarkeenu wuxuu ahaa safar dib u heshiisiin kadibna dib u heshiisiin waxay ku socotaa nabadeentuna waxa weeye waa horumar weeye marka waxyaabahan soo aragnay waxa kamid ahaa Puntland qaybaheeda waqooyi waxa yaalay horumar oo stage-kii ama level-kii way dhaafeen dib u heshiisiinta iyo nabadeenta way dhaafeen waxaan halkaas kula kulnay mashaariic runtii baaxad weyn oo aan qayb ka noqonay fursad aan halkaas fursad noo noqotay inaan la dhagax dhigno mashaariicdaas aan ballan soo qaadnay inaan dawladdu federaalka ay qayb ka qaadato Puntland ta koonfur iyo Galmudug waqooyi meesha ay soo yimaadaan halka magaalo oo gaalkacyo yaan ka bilownay dib u heshiisiintaasna maalmo iyo bilo koor iyo soo jiitay soo socotay halkaas oo aan heshiis ay ku gaareen dadka waalaha ah magaaladaas degan haddana nabadeyntii ay socoto oo aan uga soo tagnay meeshii taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Gorod iyo team meeshii jooga si ay u dhameystiraan dib u heshiisiinta kadibna waxaan nimid koonfurta Galmudug oo halkaas naftigeeda aan dib u heshiisiin weyn ka galnay Cadaado Caabud Waaq iyo Xeraale oo weli dib u heshiisiintii ay socoto oo meel fiican marayso oo dadkaas Soomaaliyeed oo waalaha ah oo deegaankaas wada leh in ay ka gudbaan nabadeyn oo ay u gudbaan horumar ay u gudbaan iyada naftigeeda waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ugu horeeyay jidka dheer ee isku xira maxaan ku raahdaa dalka isku xira oo runtii aan ka aragnay burbur aad iyo aad u weyn oo nus saac meesha loogu talagalay socoto laga yaabo in 3 saac u socoto halkaas oo aan dhagax dhignay oo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo annagoo isku tashanayna cid alla cidii na kaalmeynayna aan gacan weydiisanayno in jidkaas burburay oo 27 sano runtii aan gacan la saarin inaan dib u soo celino aan dib u dhisno si isu socodka gaadiidka iyo baaci mushtarka iyo dadka ay u fududaato waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ay kamid yihiin isbitaallo iskuulo iyo xabsiyo runtiina dadku waxay u bisil yihiin inay la shaqeeyaan dawladooda ay gacan siiyaan gacanta ay siinayna waxa ugu horeeya xagga amniga inay gacan ka siiyaan oo qolooyinkan dhibka nagu hayo oo ummadda leynaya ay gacan naga siiyaan dhanka amniga iyada naftigeeda aan abaabuli doono si aan uga saarno goobaha ama qaybo ay ka haystaan qolooyinka nabadiidka ah ee Galmudug ee qaybo ka haystaan aan gacantooda ka saarno haduu Ilaahay yiraahdo bilaha soo socda haduu ay yiraahdo ugu dambeyn waxa noo soo baxday dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad dawlad jecel laakiin wali adeegii dawladda aysan gaarin annaguna aan ballan ku qaadnay ama aan ku dadaalin intii karaankeenna inaan gaarsino wax alla wixii adeega ay u baahan yihiin
iyagana aan rabno inay gacan naga siiyaan sidii aan dawladda u dhisi lahayn ama aan u gaarsiin lahayn dawladda inay gacan naga siiyaan waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay hawshan qayb ka qaataan bacdama dawladda ay urdu tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dib u dhiska inta aan soo sheegay inay qayb ka qaataan dadka diaspora naftigooda inay qayb ka qaataan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dib u dhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan hadduu eebba yiraahdo annaguna aan organize garayno aan abaabulno sidii meel kasta dawladda u gaari lahayd adeegana loo gaarsiin lahaa si taas loo helo waxaan magacaabeynaa maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo guddi dabagal ku sameeya mashaariicda aan soo ballan qaadnay dhismahooda si aan ula soconno waxa dhaqan galay iyo waxaan dhaqan galin annagu waxa balan naga ah dawladdu inay qaadato qaybteeda ay ugu horeyso adeegii inay gaarsiiso maxaan ku waraha shacabkeeda adeeg gaarsiiso maxaa yeelay waxa isku xiraaya dawladda iyo shacabka waa adeega weeye waxaan ku dadaalaynaa dawladda iyo shacabka inay isku xirmaan oo waliba isbartaan oo ay wada shaqeyn hoose iyo ama wada shaqeyn dhow ay yeeshaan waxaan soo dhagax dhignay ugu dambeyntii socdaalkeenaas hobyo oo aan ka soo dhagax dhignay dekad waa mashruuc aad iyo aad u weyn laakiin muhiimaddu waxay tahay inay niyad naga tahay inaan dalkii dhisno oo aan maxaan ku raahdaa kaabayaasha dhaqaalaha aan xoojino bacdama dalkeenu uu ku yaalo meel istiraatiijig ah ku yaalo aan leenahay maxaan ku raahdaa xeeb dheerna aan leenahay oo 3,300 gaaraysa saas darteed meel kasta aan awood u yeelan karno annagoo kaashanayna maalgashi shisheeye annagoo kaashanayna in meel walba aan dekad ka samaysano si meel walba oo dalkeena ka mid ah uu u helo dakhli uu helo saas darteed taasi waa meeshii noogu horeysay way hadda dekadaan dhagax dhignay dekada badanna insha Allah waa dhagax dhigi doonaa hadduu eebba yiraahdo